horta Cabdullah waad mahadsantahay marka hore siyaabo kala duwan oo badan ay ku imaadaan gabdhaha Nairobi mid waa mid dhoof loo keeno oo lagu dhoofinayo la dhaho halkana sida ku timaada midna waa mid oo familkeeda problem ka haysto oo reerahoodii ka soo dhumato midna waa mid aanan ehel iyo aqrabna xaq u joogan intan u joogan oo iska timaado marka wakaas waan gartay dabcan siyaabooyinka kala duwan haba ku yimaadaan laakiin inta badan waxaad arkaysaa gabdha aan ehelkoodii la noolayn oo uun si xun u nool adigu intii aad soo joogtay maxaa saameyn ah oo aad og tahay oo gabdhahaas ama aad ku aragtay ama lagaaga sheekeeyey ama aad goobjoog ka ahaydba walaahi horta dhibaatooyinku way badan tahay waxaa waaye gabdho badan oo dhibka qabsaday halkan way jiraan waana wax dadka dhan ay wada ogsoon yihiin wax aan kaliya ogaa ma ahan gabadha markay halkan imaato dhoofka loo keeno mid ilaahay uu ku guuleeyay waxa uu imaato way baxdaa midna wixii baa kala burburo dadka keenayna biilashii iyo wixii bay haday rabaan ka goostaan xiriirka halkaas ku ekaada midaas yaan ka gudbin midaas ayada waxa uu bilaabanaysa marka nolol adag waxay baaraysaa raadinaysaa noloshaas sidii ay ku tabari lahayd nafteeda iyo mid magaaladii bay galaysaa mid reeray la noosho dhib iyo problemyo badan ka imaanaysa mid waxay ku fikraysaa inay maqaayada iyo shaah iyo wax sameysato marka waxaa igu maqaan gabdhaha qaarkood in kuwo reerkoodu ay soo diraan iyagoo looga cabsanayo in ama gabadha la faro xumeeyo ama uun si loo kufsado ama dhibaato ka weyn loo geysto qaarka kale waxaa laga yaabaa in loo diido wiilkii ay rabeen oo lagu qasbo guur iyagoo ayna raalli ka ahayn siyaabahaasna qaarkoodna ay sidaa ku yimaadaan iyagoo laga yaabo in ehel iyo qaraabo meesha ayna u joogin laakiin unde indha garasho iyo daris iyo inta ay ku joogaan gabdhaha noocaas oo kaleeta marka aad la sheekaysato maxaa kaaga baxa oo aad noo sheegi kartaa wallaahi horta de qofkan waxa weeye xanuun badan iyo dhib badan uu dareemayo markuu ku waramo adna la dareemaysayo waxa tahay bil aadan waxay ku leedahay familkeena nin ugu dararabay idan dhibaatadaas darteeda halkan u imaaday waxa laga yaabaa dhibaatadii ay ka soo cararaysa dhibka weyn inuu ku dhaco oo ay waxa ku dhici karto gabdhaha ma wada wanaagsana qaar baa xun oo nolosha ka dhacsan qaarna way fiican yihiin midda nolosha ka dhacsan midda nolosheeda fiican tahay marabto waxay ku dadaalaysaa inay sidaas ayada tahay oo kale ka dhigto kuwa biyaha wax loogu daraayo sidaas daraagis ku la qabsado kuwa mushkilooyin badan oo aanan halkan aniga ku soo koobi karin baa iska jiro marka dhibaatooyinkaas ayaa ku dhacdo waxaan hadda ka hor kula kulmay gabar saaluun timaheeda dhan isku dhigdhigan yihiin waxay ugu tiri muddo dhowr bilood ma shalaysanin qiso yar oo xanuun badan ay iiga sheekeysay waxay tiri Soomaaliya joogay reerkeena la noolaa familkeena waxay ahaayeen famil sabool halkan gabdho soo aadeen oo lacag reerahooda u soo dirdiraan arkay kadib waxaan ka qaatay reerahoodii lambaradooda waana soo wacay waxay tiraahday waxay ugu dhaheen shaqeena reerkeena waa bilna lacagna meel baa dhiganaa walaalayaal hadii aan imaado meeshii lacag ii raadin kartiin shaqooyinkii oo kale aan reebay dhahday then haabay ku dhaheen gabadhii sidii baa inta lagu keenay markaan maalin iyo habeen nastay bay tiri magaalada Nairobi aan ku suganahay baa waxaa dhacday bay tiri in lay wado gabdhaha aniga ma aqaan bay tiri laakiin waxay ahaayeen bay tiri kuwa jirkoodii ka ganacsado shaqada ay lacagta reerahooda uga soo diraana shaqo ay halkaas ka keeneen bay ahayd marka waxaa dhacday in waxaa dhacday gabadhiina meesha markii la geeyay biyihii waxa loogu daray waxay tiri muddo kadib baan waxaan soo baraarugay tiri anigoo aan daaqadii ka baxsan adiga okay sidii markay igu dhacday bay tiri waxaan isku dayay tiri inaan soo waxeeyo daraagiskii baan raadinayaa bay tiri anaa barabo
wixii ay siinayeen sankay wax iga siiyeen waxbay igu dareen wixii anaa barabay tiri qalbigayga wuxuu isleeyahay waxaan aad ka baxdid mana ka bixi karay tiri awooddaas ma lihi maryan waxaa jira gabdho markii nolosha Nairobi ay ku adkaato dantu ay ku kalifto in ay shukaansadaan ragga ay u malaynayaan inay hantida ka helayaan iyagu madan baa ugu jirta mise dhibaataa baa laga yaabaa inay kasoo gaarto inta aad og tahay horta nin xulihiisa la cunay oo aadan daacad u ahayn waxaa kaasoo gaaraya dhibaato markay ugu yaraatay il noqoto inaad meelaha ku dhadhacdid noqoto marka kalena waxaa waaye qofkan ficil baa gelayo oo mid baa isku dayay inuu ka aragoosto midna wuxuu leeyahay iska dhaafada ayada sidaan garatay waa midka u fiican kaas u fiican oo kaa tegay wixiisi kaama harin nabsi aad gashay weeyo meel ku yaalo marka waa wax ayada hadhow aayaheeda dambe iyo nolosheeda dambe saameyn weyn ku yeelanaya marka marna faa'iido uguma jirto gabdho waxaa jira iyaga oo noloshooda maareynaya ragga hantida lana shukaansanaya laguna qasbayo macnaha si hantida loo siiyo in iyada jirkeedii ay iyadana ay ku bedelato taas oo laga yaabo inay gabadha ay macnaha ama uur ay ku qaado ama un dhibaato kale ay kasoo gaarto gabdhaha noocaasi oo kaleeta ah marka ehelkooda ay maqlaan dabcan dee waxaa weye dhagaxumo badan baa reerkoodii ay usoo jiidaysaa intii adigu aad goobjoogka u ahayd ma ku soo martay macnaha gabdho noocaas oo kaleeta intii aad arkaysay ama xogogaalka ood u ahayd walaahi horta ilaahay hana wada asturo waxaa waaye way jiraan gabdho badan oo dhibaatooyin noocaas ku dhacaan oo uur intay loo yeelo uurka lagu inkiro familkooda ceeriyo wax badan oo dhibaato ah halkaas uga timaado maqal iyo muuqaalba waanan aragnay waanan maqalnay marka waa kaas waan gartay marka dee nolosha Nairobi wiilasha iyo gabdhaha markii loo fiiriyo waxaa xagga adkaysiga ku badan ragga oo iyagu meelo badan bay ka xamaashaan gabdhaha iyaga oo shaqaysan kara laga yaabo in gabadhan ay ama maqaayad shidan karto ama saaluun ay furan karto ama uun dee meel kale uun ay ka shaqayn karto intaba gabdha aan isku dayin baa jira iyagoo xoog leh laakiin asxaabtooda la nool gabdhaha caynkaasi oo kaleeta ah ma iyaga ayaa gabdhaha kaleeto xumaatada usoo jiida mise waxaa weeye waa uun dhaqan ay gabdhuhu ka siman yihiin okay gabdho dad la nool oo sharaf leh way jiraan oo aan cidna dhaqan xumo usoo jiidin cidnana dulmin gabdha wax dulmiyana waa jiraan laakiin gabadhan awood qof walba horta bili aadana rag iyo dumar ilaahay awood buu siiyo awooddaas waa awood uu wax ku qabsan karo mar hadday lixdaadii lixaad iyo caqligaaga ay ku dhammaystiran tahay wax waa qabsan kartaa ama dumar ahoo ama rag ahoo ka ragga xoolaha uu soo shaqaystay oo aad ku xisaabtamaysa bishi markay dhaamaato dad baa ku xisaabtama adigu waa samaysan kartaa maqaayad haddii aad furatid oo ashaha karisid sharaf waa shaqo haddii aad dukaan furatid waa shaqo ayadana sharaf haddii aad gabar dukaan intaad u imaato aad usii gado bishi mushaar ku xisaabtana sharaf Maryan intaas markii aan kasoo gudubno gabdhaha iyagu aan ehelkooda la nooleen Nairobi ku nool iyo nolosha ay ku nool yihiin bal adigu taariikhdaada goormaad Nairobi soo gashay sideed ku soo gashay yaas hadda la nooshahay waa mahadsantahay horta dhagaf aniga Soomaalidu waxay dhahdaa jiir haan ku weynaadeen waxa ahaa jiir haan ku weynaadeen oo aad ula jeedo hooyadii aabahay baa ilaa markaan dhashay ilaa xilligan la taagayo ku noolahay alxamdulillah waxa dhibaato ah kulamo kulmin oo kaligay meel intaan u baxay oo safar aaday wadan kaligay ma tagin oo dhibaato igama aysan soo qabsanin marka Kenya cimrigayga dhan baa jooga waan gartay marka nolosha Nairobi aad fiiriso gabar aan ehelkeedii la nooleyn adiguna aad gabar aad tahay oo aad ehelkaaga la nooshahay farqiga idin dhaxeeya ee ku sawiran muxuu yahay horta damiir bil aadanimo jiro kuwa aan heesanin waxa aan aniga heesto marka aan arko waan u danqadaa waa walaaladay islaamnimo iyo Soomaalinimo waan wadaagnaa farqiga noo dhaxeeyana qofte hooyadiis ka soo agtoosayo ilaahay hanoo daayay iyo qof hooyadiis ka maqan tahay xataa haday u nooshahay
isku mid ma ahan boholyow baa jira xataa gabadha haddaysan xumeyn oo nidaam iyo sharaf iyo sumcad xataa magaalada ku joogto boholyow hayaa jiro bahdaa maqan marka farqigaasaa noo dhexeeya waan gartay marka loo fiiriyo dee waad dareemi kartaa inta badan sida hadda sheekadii aad ka sheekeynaysay gabadhii micnaha beenta loo sheegay ee Nairobi sidaa ku timid markii dambe xumaatada aragtay lugaha la gashay haddana qaabka dambe dee walaalkeed uu sabab u ahaa in ay ka baxdo gabdhaha ku jira arrintaa ee gabdhaha kala duursanaya iyagu ma nolol fiican bay u arkaan baad u malaynaysaa mise looba waraari waxaan leenahay Allah soo hadeeyo xaqa iyo wadada toosan Allah tuso anaga dhanna Allahna wada tuso Maryam waa kaaga mahadcelinayaa ka qayb qaadashada barnaamijka aad nagala qayb qaadatay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo nolosha Nairobi aad baa u mudantiin idinkana waa ku mahadsantiin meeshiina ay ugu casuunteen